بسم الله الرحمن الرحيم أصحابي كسر هذا الشو برنامج كنا سويت بوقت وأنا كسر قاعد أنا قيد طلبات بوجا the psychology of money أما علم النفس اللي لعبته أنا كسر قاعد علم النفس اللي لعبته بوكا وبوك عجائب له وواحد بدنا أتذكر رأسا كرت هذه آخر ستة ما دقيقة ستين طبعا هذه تمر كومو رئيسي أصاب وقته درج الشو فالله رقمه مقال كان لا يكسر سواء كان لك قبل فرصي كسر جرى مقالة أنا كله أو مقالة دمبو waxaan geli doonaa qaybta labaad ee buugga The Psychology of Money qaybtan waxaan kusoo qaadan doonaa 10 aan kusoo qaadan 10 cashar ama 10 qodob aan kusoo qaadan doonaa maadaama aan sheegnay 19 cashar ama 19 qodob inuu ka hadlayo buuggani waxaan kusoo qaadan doonaa maxaa la yiraahdaa 10kii dambe ee 19 ka mid ah hagaag qodobka 10aad ayaan kusoo qaadan doonaa qaybtan oo buuggan fursadaha aad lumisay la yiraahdaa فرصة أو مسقطن كقولك تونا مراك قار وفي عنتهاي إن أسيكت فرصة أدو هالس بدن فرصة أدو هالس بدن إن أسيكت وفي عنتو اللي مراك قار ضد بدن وحى يكون دريستان مالية دو محايل وحى يسود يعني إن يكفي الإنسان فرصة كست أو موقته يتصل منها فرصة أرجع فرصة دو أرجع بسوي كفي فرصة معي هرب وقلها مال كسوة تاعين حتى كوا aan la hubin waa iska gacan kuwa aan la hubin xitaa waa gacan inaad fursado badbaado leh hayso waxa ay ka muhiimsan tahay inaad isku daydo fursado degdeg ah oo aad u fara badan boqol meelood inaad gasho waxa ka fiican uu leeyahay kuwa badbaado leh ama fursado aad looga fiirsaday laga baaraan degay inaad raadiso dadka maalgashiga sameeya ee guuleysta waxa ay bartaan inaysan isku dayin فرصة كاستا أو صباحه بل سيد دورتان هو صحدا أو وافقسن يولل كود ماليين أهداف ليه أهداف تودا وح وافقسن راديان وليه حاجة وإناس فهمتا إن فرصتها اللومي أرن كان قاعد فهم إن فرصتها اللومي أي مروة البدبات أهين وحبا كوسا رافي هاو أركن حكاشان لاين وها أركن وين وكسيجون أركن وحلا يابا وح بلاي إلى كابل بدر من إيطاليا لكن قال شذا فرصة قلبا يهور سيدي كلام بربر الرقال فرصة قلبا وقالته بربر الرقال هور سيدي كلام فرصة ما أكون رافتي وإحنا كمان قلنا إحنا كمان فايدين مركا الله فهذا قبل بعد الله فهذا قبل بعد والله كويتون هذا فهم إن أي ضدكوا كل دويه ضدكوا إني كل دويه فهم قفوا البوح والعقد أفهم السجارة iyada oo ku xiran waaye aragnimadiisa iyo xaaladaha uu ku soo barbaaray ay ku xiranta waaye aragnimadiisa iyo xaaladaha ama jawiga iyo habnololeedka uu soo maray ay ku xiranta okay wuxuu leeyahay dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin in maalgelinta suuqyada ay tahay dariiqa saxda ah ee lacag lagu kasbado halka kuwa kale ay u arkaan in ay halis badan tahay isku fahamna ma handadku qaar basi wuxuu fahmaa wuxuu leeyahay dadka qaar waxay aaminsan yihiin ayagu in maalgelinta suuqyada ay tahay dariiqa saxda ah ee lacag lagu helo kuwa kale waxay u arkaan halis inay taabo inay halis badan yihiin maalgelinta suuqyada u arkaan waa muhiim inaad ogaato in habkaaga maaliyadeed uusan ku habboonayn qof walba sidoo kale habka qof kale oo u maareeyo lacagtiisa maaha mid kugu habboon adiga inay kala duwan tihiin aan dheer marka waxaa jira boqolaal dariiqo iyo boqolaal istiraatiijiyado la isticmaalo jirto hagaag waxa laga maarmaan ah in aad wax ka barato waaye aragnimada dadka kale oo aad ka faa'iideysato waa muhiim laakiin waa in aad go'aamadaada ku salaysaa baahiyahaaga gaarka waaye aragnimada dadka iyo dadka ka horeeya ama suuqaaga horeeya ama ka aqoon badan ama shaqada aad ku jirto kaaga horeeya wax ka faa'iideyso laakiin waxa ogaataa marka aad go'aamada qaadanayso wax baahida gaarka ku saleynaysa laakiin ayagu sidii sameeyeen kaliya raayis qof walba waxa noloshiisa u dagsan yoolal kala duwan sidaa darteed ma jirto hal nidaam oo sax ah oo qof walba u shaqeynay ma jiro hagaag qodobka 12 wuxuu leeyahay xakamay qatarta xakamay ha isku halayn fursadaha kaliya ha isku halayn hagaaga wuxuu jeedaa farsamooyinka xakamaynta qatarta
waxa ay kaa caawin karaan inaad la tacaasho isbedelada lama filaanka mid ogaada dhaqaalaha ama suuqyada marka laga hadlayo qataraha dhaco mostly qatara la filaya ama dhacdooyin la sii odorosayo ma banaqdaan mostly qataraha dhaca waxa way wax aan lagu tala gelin ayaa dhaco tusaale ahaan dhaqaale burburka adduunku ka jiro waxa sababay waxyaabaha sababay ee aan rabaa inaan laba qodob kaga sheego laba qodob ugu waaweyn sabab horta dagaal sabab mostly badana dagaal sabab waxa sababay ugu weyn dagaalka Ukraine waxa bilowday 2022 bishii February ayuu bilowday waliba bishii February dhowr iyo 10keedii iyo 20 something keed meelaha soo bilowday waxa maray 20 meelaha qiyaastii ma bas dhaqaale burbur weyn oo adduunku sameeyay dagaalkaas yaa filayay February 2022 yaa saadaalinay in ruushka uu ku duli doono Ukraine saadaalinay ma yidna marka tusaale kale 2023 bishii October 7deedina maxaa dhacay kooxda xaqodirka ama go'aandoonka Falastiiniyiinta ayaa waxay ku duuleen qolada Yuhuudi ku duuleen nimanka mujaahidiinta oo go'aandoonka ku duuleen Yuhuudi ku duuleen dagaalku wali waa socdaa hadda in kastoo lagu jiro maxaa la yiraahdaa xabad joojin haddana dagaalku waa socdaa oo inay socodka ka dhiganta bishan la soo dhaafay oo January dabiiqadeedii ama 19 ama leen xabad joojinta bilaawday hadda wali qalqayna lagu jiro lama hubo dagaalku inuu sii socon doono marka la isku laaban doono oo ognahay nimanka Yuhuudda oo ballan beenayaal iyo inuu joogsadan loo yaqaan labadaas dagaal adigu research garay oo baar qasaaraha ugu weyn ee dhaqaale adduunka dhacay sababay waxa ogtiin dagaalkan tusaale kale ka dhacay Gaza oo kale wuxuu sababay in badda cas inteeda badan ay howlgab noqoto oo qaladii la dhihi jiray Xuutiyiinta ayaa badda cas xirtay waxay joojiyeen maraakiibtii ganacsiga wixii ay joojiyeen maadaama ay mostly badda cas ay ka faa'iideysanayso Yuhuudda marka dhaqaale burbur badan ay yimid shidaalkii qaaloobay dhibaato dhacday badeecadii qaalowday waxa soo dhan suuqay saameyn ku leeyahay suuqa meel kasta uu joogay saameyn ku yeelanay marka waxa ogaataa wuxuu leeyahay lama filaan halisa lama filaan ama qabo arrimo lama filaan imaanayo oo aan la socon adiga dad badan waxa ay ku guul dareystaan maaliyadooda maxaa yeelay waxa ay isku haleeyaan hal il dhaqaale oo fursad kaliya hal il dhaqaale ay isku haleeyaan hagaag xakamaynta qatarta waxa ay ka dhigan tahay in aad lacagtaada badbaadsato aad kala duwato maaliyadaada maalgashiyadaada inaad kala duwato oo hal meel kaliya aan lacag ku shubin iyo inaad ka fogaato inaad hal mar qasaaro weyn la kulanto wuxuu leeyahay xakamaynta qataraha waxa ay ka dhigan tahay in aad lacagtaada badbaadsato macnaha maalgashiyo aad samaysan horta maalgashiga marka hal meel lacagtaada ku shubmayso dhowr maalgashiyo samaysan laakiin sida hore u soo sheegnay meel fursad kasta oo aragtaa ku carar lacagtaada dhowr meel kala dhigo dhowr meel ku kala maal gasho dhowr business gal qaara qasaari karo qaara culays gali kara qaara wax weyn soo saari karo qaarna waa bulaali kara marka haddii aad tahay qof sameeya maalgelin waxa muhiim ah in aadan lacagtaada oo dhan gelin hal suuq ama hal shirkad maxaa yeelay haddii ay wax badan wax qaldamaan macnaha oo qasaaro degdeg ama lama filaan u dhaco waxaad luminaysaa wax walba hantida dhan meesha ku lumay dadka aqliga badan waxa ay fahmaan in ay muhiim tahay in la samaysto qorshe labaad waxa loo yaqaan backup ay samaysanayaan backup plan ay samaysanayaan si ay uga badbaadaan xaaladaha aan la saadaalin karin soo dhacdooyida si ay uga badbaadaan maxaa la yiraahdaa ama wax iska yimid maanta suuqa dhulka gal tusaale kale 2019 maxaa dhacay dabeeqadeeda ma leeyahay bishii December November wax ka dambeeyay November 2019 maxaa dhacay COVID-19 wax la yiraahdo adduunka dhan madax isu kaliya dhaqaale burburka adduunka dhaqaale burburiyaasha dhacay ugu weynaa dhacay yaa saadaalinay cudur ilaahay keenay ya og xilli uu imaanayo marka backup plan ay yeelanay waxa la saadaalin karay si ay u badbaado ama wax kugu haraan oo aad meesha u baabay ma jirto leeyahay maalgelin aan halis lahayn taas waa inaad ogaataa 100 jeer ka hadlo maalgelin halis la'aan ma jirto laakiin halista waa la xakameyn karaa iyadoo loo marayo taxadar marka horeba
taxadar samee baaritaan qoto dheer la sameynaya iyo kala duwidda ilaha maaliyadeed dhowr meel ayaa hantidaada dhigaysaa gelinaysa qodobka 13 wax walba waa suurtagal la yiraahdaa suuqa dhaqaalaha wuxuu u dhaqmaa si aan la saadaalin karin u dhaqmaa si aan la saadaalin karin u dhaqmaa maalin hore waxaan arkay ninka hadlaya waxa loo yaqaano cryptada sida loo maalgasho ama lacagahan digitalka marka ninka kolay xigmada anay ka faa'iido oo asagu wuxuu dhahayay markaan suuqa saadaalinayo ama aan samaynayo analysis-ka falanqaynta suuq markaan samaynayo dadku meesha ay aadaan opposite-keeda aadaha dadku badanaa marka ay yiraahdeen suuqaanu buy u aaday anigu selan aadaan sababtoo ah meesha dadku aadeen waa meel la saadaali dadka dhan wada saadaali macna dadka dhan wax ay wada saaleen wada ogyihiin laakiin sax ma suuqan maadaama buy uu soo jiro xoog leh dadku waxay isaga haysan buy inuu si aaday laakiin suuqu nasanaya marka sal u aaday macnaha wuxuu la jeedaa saadaalinta la samaynayo markasta ma naqan karto wax 100% ah taasan ka fahmaanay ka dhaqaaqay dalkiisa laakiin macnaheedu ma asaga inuu saxaya 100% ma jiro uu leeyahay qof si sax ah ogaan kara waxa suuqa ama dhaqaalaha mustaqbalka ka dhici doona waa sax taas ma jirto waxa kale ee la xakameyn karo waa hab dhaqankaaga iyo sida aad u wajahdo suurtagalnimada isbedelada dhaqaale faham iyo qiyaas fiican oo ku salaysan suuragalnimo iyo suuragalnimo la'aan waa in haataa waxa waa inaadan dhihin waa sax waa dhacayaan waa inaadan dhihin laakiin waa dhacayaana sida u dhacayaan sidaan waa dhici kartaa sidaan waa dhici kartaa sidaan waa dhici kartaa saddexdan siyood sida haddaan yahay labadan sida uga badbaadi karaa qorshaa samaysanaysaa marka dad badan waxa ay sameeyaan qalad ah inay isku dayaan inay si sax u saadaaliyaan dhaqaalaha mustaqbalka taasoo inta badan horseeda go'aano maaliyadeed oo qaldan adiga dhaqaalaha waxa suuqa dhici doono adiga berriya si ogta miya ma ogad berri laakiin se berri wax lagu saadaalin karo lagu sarayn karaa jiro ayadoo 100% la ogay hagaag markaad fahamto in dhaqaalaha iyo suuqyadu yihiin kuwo isbedbedelaya waxaa si degan u qorsheyn kartaa istiraatiijiyad maaliyadeed oo muddo dheer ah waqti dheer istiraatiijiyad maaliyadeed ayaa samayn karta taas aad u faham qodobka 14 isbedelada dhaqaaluhu waa caadi dhaqaaluhu isbedeladiisu waa caadi haye maxaa loola jeedaa waxaa muhiim ah in la fahmo in hoos u dhacyada suuqu ay yihiin wax caadi ah macnaha hoos u dhacayna suuqu dhaco in qasaar dhacdo wax normal ah oo hab nololeedka kamid ah suuqyada mararka qaar waxa ay galaan xaalado hoos u dhac ah taasoo caadi ka ah dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha hoos u dhac inuu yimaado sababtoo suuq marka hoos u dhac sameeyo fursad uu abuuraya dadoo suuq u sameynaya sababtoo haddii suuqi cidiga shaabay cirka iska aado fursad ma heli doonaan dadka hadda soo galay iyo dadka hoose iyo masaakiinta marka suuqu markasta uu qasaaro sameeyay ama hoos u dhac sameeyay dadoo suuqa soo gelinaya dadoo fursad abuuraya inta badan maalqabeennada dhabta ah waa kuwa fahmo in wax walba aysan joogto ahaan doonin wax walba joogto ma ahaan doona sidaas darteedna ay diyaar u yihiin isbedelada dhaqaale waa inay diyaar u yihiin isbedelada dhaqaale sidoo kale wuxuu leeyahay waa muhiim in qofka maalgelin sameynaya uu yeesho qorshe wax ka bedelaya isbedelada lama filaanka macnaha qorshe waa inuu sii yeeshaa waa in uu jiraan waxyaabo uu ku sii talagalay iyo haddii sidaan dhacdo iyadoo xaaladdu sidaan tahay maxaa samaynaysaa waa inay jirto halka dad badan ay ka cabsanayaan hoos u dhacyada dhaqaale kuwa xirfadda lahu leeyahay waxa ay u arkaan fursad ay lacag uga samayn karaan mustaqbalka macnaha hoos u dhac inuu dhacdo waa fursad ayuu leeyahay marka dadka xirfadda leh dadka qaar waxay ka cabsanayaan in hoos u dhac dhaqaale u yimaado kuwa xirfadda lana ayagoo suuq ku jira ay haddana waxay u arkaan haddii hoos u dhac yimaado in ay fursad kale uga faa'iideysan karaan ay kasii baaraan degeen ay jirto hadda qodobka 15 wuxuu leeyahay ha u guul daraysan si degdeg ah ha u guul daraysan si degdeg ah wuxuu la jeedaa dadka qaar waxa ay waayeen lacagtooda maxaa yeelay way degdegayaan macnaha wax kasto suuqa maanta soo gala xoraa bil kadib inuu hanti ka helo degdeg ku furo
هقول دراسة مركز دقدقة وأنا دقدقة يعني صفي عن لور روجن وحي أنت بدن كان قصارى مالية كان وأنا ذكر فيرسو مركز سمين يس أضو وقتك كفى أي سنة يوم وأنا دب سجدين هذانا صفي عن وفكر وحا مهمة إن قفك أوسن كفكرين فإذا دقدقة أنا كفكرين معناه فإذا دقدقة اليوم كفكرين بس أو ديرة صار مستقبل كفك سيدا حالة النقم دون صبرك يكفوغان تفعيلات دقدقة waxa ay yareyn karaan qasaaraha aan loo baahnayn ay yareyn karaan sabirka ina sabir yeelato iyo ka fogaato ficilada degdega haga dad badan oo maalgeliyaal ah waxa ay waayaan lacagtooda sababtoo ah waxa ay u maalgeliyaan lacagta markay maalgelinayaan si degdeg u maalgeliyaan iyagoo samaynin cilmi baaris qoto dheer ma sameeyaan aad uga fikiri maayaan ka fiirsan maayaan oo doorasi maayaan qorshooyin badan sameyn maayaan oo ku saabsan halka ay lacagtooda gelinayaan wax cilmi baaris qoto dheer ma sameeyaan ka taxadir in aad la socoto dareenka dadweynaha ee suuqyada maaliyadeed waa arrinka hadaalka halday dadku meesha u yaacayaan riskiyadu waa badan yihiin maxaa yeelay mararka qaar dadka intiisa badan waxa ay ku dhaqaaqaan ficilo qaldan oo horseedi kara qasaare dadku indha ku garaadlayaal u badan yihiin tusaale kale suuqa dhaqaaq uu sameeyay kor u kac uu sameeyay kor ku xoog uu sameeyay dadka intooda badan waa ka daba cararayaan marka waa cayrsanayaan waxay leeyahay ka gaaray waa kor u socda ma dhahayaan hoos u aadi doona ma dhahayaan marka dadka intooda badan ama la soco dareenka dadweynaha in aad la socoto ka taxadar maxaa yeelay mararka qaar in dadka intiisa badan waxa ay ku dhaqaaqaan ficilo qaldan oo horseedi kara qasaare isbedelada dhaqaale ee suuqyada maalgashiga mar walba waa lama filaan sidaas darteed waxaa muhiim ah in qofku ku salaysiiyo go'aanadiisa xog dhab ah iyo cilmi baaris lagu ku salaysiiyo ayaa muhiim ah qodobka 16 wuxuu leeyahay weligaa ha ka badin ama ha badin weligaa qarashaadkaaga macnaha ha ka badin aad ha u badin macnaha qarashaadkaaga had iyo jeer isku day in qarashaadkaaga aad hoos u dhigto hoos uga dhigto marka la barbar dhiga dakhligaaga inuu ka hooseeyo u dadaal dad badan waxa ay galayaan dhibaato maaliyadeed maxaa yeelay waxa ay qarash gareeyaan wax ka badan inta ay kasbadaan qarashaadkooda wuxuu ka badan yahay kasabkooda ama dakhligooda ka badan yahay marka qatarta ayaa badan arrinkaas sidaas ayuu leeyahay Morgan Housel sida ugu wanaagsan ee xasilooni dhaqaale lagu gaaro waa in la dhiso caadooyin qarashaadka lagu xakameyn karo in la dhiso waaye si looga fogaado deyn xad dhaaf ah markasta oo qarashaadka dakhli ka bato waa inaad deyn qaadataa marka deyntaasu ma bixi kartid because qarashaadka dakhligaada ka badan ba sidee deynta ku bixin waa iska qaadataa deyn macna ugu dambeysana nin deymaysan naqanaysa oo markaas in la xabsi lagu garshaad qatar ugu jirta hadafkaadu waa inuu noqdaa in aad qarash garayso wax ka yar inta aad kasbato waa inuu hadafkaadu noqdaa si aad u yeelato kayd maaliyadeed oo badbaado ku ah oo bari haddii wax dhacaan ama riski ku yimaado ama xitaa maalgashiyo iyo dhaqaale kale aad ka samayso inaad si xad dhaaf ah u isticmaasho deymaha sida kaararka deynta annaga ma nihin waxaa loo yaqaan credit cards laakiin samicnaha deynna qaadato say doonto waa kugu soo gashay waxa ay sababi kartaa inaad noqoto qof la halgamaya deymaha halkii aad xasilooni dhaqaale dhisan lahayd macnaha kama fikiri kartid dhaqaale inaad samaysan karto dadka maaliyadooda si wanaagsan u xakameeyo waxa ay bartaan in yoolka dhabta ah ee maaliyadeed uusan ahayn kasbashada lacag badan balse uu yahay xakameynta qarashaadka inaad xakamayso waa inaad focus ka saartaa marka koobaad intii aad lacag badan ay ku soo gasho kaliya ka fikirle dadku wuxuu leeyahay maaliyadooda si wanaagsan u xakameeyo waxa ay bartaan in yoolka dhabta ee maaliyad uusan ahayn kasbashada lacag badan balse uu yahay xakameynta qarashada qodobka 17 ayaan soo gaaray hadafyo cad samayso wuxuu la jeedaa hadafyada maaliyadeed ee qeexan oo qorano diyaarsan waxa ay ka caawinayaan inaad noqoto qof si wanaagsan u maareeya lacagtiisa wuxuu leeyahay qorshe la'aan dhaqaale waxa ay sababi kartaa in lacagtaada si fudud u dhamaato burbur kugu dhaco
iyadoo aan wax faa'iidaha laga helin lacagtii waa dhamaanaysa meel banaan soo istaagaysa qof walba waa inuu leeyahay qorshe mustaqbalka fog qorshaha mustaqbalka fog waa inuu leeyahay oo uu ku dejinayo sida uu maareyn lahay dakhliga iyo qarashaadka qorshaha mustaqbalka fog waa inaad marka ku dejisaa saa u maareyn lahayd dakhliga ku soo galaya iyo qarashaadkaaga hadafyada cad ee la qoro waxa ay qofka siinayaan jihayn hadafkaada inuu qoray waxayna sare u qaadayaan dadaalkiisa qofka uu ku sameynayo horumar dhaqaale ay kor u qaadaan waa inuu qoraya marka hadafkaada iyo qorshahaada waa inuu qoray maskaxdan ku haya may dadka guuleystay ee dhanka maaliyadda waxa ay si sax u qorsheeyaan halka ay rabaan inay gaaraan qorsheeyaan shanta tobanka ama 20ka sano ee soo socota gudahood macnaha 20 sano soo socota halkee rabta 10ka sano halkee ku socota 20ka sano ku socota hadafyada cad waxa ay ka caawinayaan in aad go'aano sax ah ka gaarto sida aad u kala hormarin lahayd maalgelinta kaydka iyo qarashaadka muhiimka ah sa u kala hormarin lahayd ayay ka caawinayaan hagaag qodobka 8 ha ku tiirsanaanin aqoon kaliya meeshan dad badan laga yaabaa inay u arkaan xogaha xasaasiyad inay yeelato laakiin waa soo dhaadhac ha ku tiirsanaanin aqoon kaliya wax ka badan cilmi iyo aqoon ayaa loo baahan yahay si lacag loo xakameeyo wax cilmi iyo aqoon ka badan ayaa loo baahan yahay si lacag loo xakameeyo haye dad badan waxay aaminsan yihiin in aqoonta maaliyadeed kaliya ay ku filan tahay si qof u noqdo mid guuleysto dad badan saas ay aaminsan yihiin laakiin dhaqanka qofka iyo go'aanada uu qaato ayaa ka muhiimsan dhaqanka qofka anshaxiisa iyo go'aan qaadashadiisa ka muhiimsan aqoonta maaliyadeed kaliya markay tahay aqoontu waxa ay ka caawin kartaa fahamka sida loo sameeyo maalgelin ay ka caawin kartaa laakiin haddii aad xakameyn weydo dabeecadahaaga waxaa suurtagal ah inaad samayso go'aano xun macnaha maadaama dabeecadahaada aadan handalganayn karin gacanta ku hayn markasta go'aano qaldana qaadanaysa qof walba wuxuu u baahan yahay in uu yeesho caadooyin wanaagsan oo maaliyadeed u baahan yahay sida kaydinta joogtada ah taxadarka qarashaadka iyo maareynta khataraha intaas iska ilaali kayd joogtaa yeelo qarashaadkaada ka taxadaro xakamay maareen sidoo kalena khatarahana maaray sidoo kale oo khataraha taxadar iyo nidaam u yeelo dad kale aqoonta sare oo xagga dhaqaalaha ah haddana guul daraysta waxaa sababa inaysan la iman dhaqan maaliyadeed oo sugan dhaqan maaliyadeed sugan waa inaysan la imaana keento guusha maaliyadeed waxay u baahan tahay in la isku daro saddexdan shay in la isku daro loo baahan yahay aqoon kow waa loo baahan yahay anshax dhaqameed loo baahan yahay iyo dulqaad saddexdaa shay ayay u baahan tahay mar kale aan ku celinay arrinkaas ka fiiri aqoon iyo anshax iyo waxaa loo baahan dulqaad muhiim haddii aad rabto horumar dhaqaale ha ku tiirsanaanin aqoonta kaliya balse u dhaqan si togan adigoo baranayo go'aanada saxda ah ee laga maarmaanka u ah maareynta dhaqaalaha ama maareynta lacagta adoo isticmaalay ugu dambeyn qodobka 19 cashirka 19 iyo 19 cashir aynu hore uga soo hadlay haddii aad maal gelinayso ha isku dayin in aad waqtiga saadaaliso suuq inaad saadaaliso ha isku dayin qodobka 19 saas uu leeyahay dad badan waxa ay isku dayayaan inay waqti sax ah sugaan waqtiga saxda inay sugaan isku dayayaan si ay suuqyada uga macaashaan taasoo keeni karto khasaaro haddii waqtiga saxda ma ogtahay maya suuqa gal tibis iyo anshax iyo nidaam samayso laakiin suuqa gal waa muhiim in la fahmo in suuqyada maalgashiga aysan la socon xeerar sahlan oo la saadaalin karo macnaha waxa la iska arki karo adiga iska ogaa karta ma haddii kale khasaaro ma dhici lahayn markaas xitaa maalqabeennada ugu waaweyn sida Warren Buffett oo kale waxa ay aqbaleen in aysan awoodin inay si sax ah u saadaaliyaan marka suuqyada ay kor u kici doonaan ama ay hoos u dhici doonaan ma oga ayaga ma sheegi karaan ayaga taas sheegay taas beddelkeeda waxaa wanaagsan in la raaco istiraatiijiyad maalgelin oo joogto ah halkii la isku dayi lahaa in la ogaado xilliga ugu fiican ee wax la iibsada ama la iska iibiyo xilliga ugu fiican la iska iibiyo ama la iibsado inaad ogaato isku dayi oo saadaal rasmi ah ka bixiso
لكن سلام عامل سوق إيه حالة دي يستوي هاي استراتيجية أديك أراعده وأتجابي ستنا سمايسون وحول لي وحى مهم إن مالجلينتو نقطة مدة دير أو أي لا سعوطة أم وضعته وحلو يقان دلقات هل كي لفهادين لها فائدة دقيقة وأنا وضعته دلقات مالجلينتو مدة دير وأنا كفكرتها دلقات كل معناه مدة دير كسوكرتها فائدة دقيقة هرهادين وقدام بينتي هدي أعرف تقول دنك مالجلينتا هدي أعرف تاسوغو وأنا سميسو قرشة جوكتا أحكو أو أسكيا يسو فعلا دقيقة يعني كو ساليسان dareenka iyo cabsi ka timaado isbedelada suuqyada macna suuqa maalgelinta ku sameeyso ma suuq istiraatiijiyadna sameeyso marka hore suuqa xoolaha loo dhinac u leeyahay lacagta la soo ordi iyadoo qasaar ku dhacdo ama aad wax ma faa'iido suuq wali u cararay ha ka daba ordi ee suuq lacagta waxa ku sameeyso taa gashatay marka qodobka sagaal halkaas ku soo gowgeynina qaybta labaad maxaa yiraahdaa بوق اللي يقان psychology of money أما علم نفسك العكتة هل كاسين ينقصوا قبقيني لكن حاجة يضون قيب سدحات أو مهم هذا مهم وأولي وتلوي محقوق الله أو أنقصوا قانون ضون علم نفسك العكتة أما psychology of money طبعا استراتيجية أو تلوي أو بحنا يا إيوه جناية كجود بوق يعني قاعدون قيب سدحات وحن كان لنا حواهن دقالة sidee loo sameeyaa sidee dhaqaalaha loo ilaaliyaa hantida lacagta sidee loo maareeyaa lacagta sidee loo maareeyaa waa shay weyn oo muhiim ah isla fahanayta marka wax badan buugta aan ka hadlayo aad uga hadlaan waxaan ogaataa waxaan waa cilmi dad waaye aragnimadoodu waay dadkan marka wax badan oo og yihiin oo daraasadahay sameeyeen ku socdaan marka taas waa inaad fahantaa dabadeedna aad raacdaa nidaamkaas aad raacdaa marka qaybta labaad ee muuqaalkeena ama buugga psychology of money halkan ku soo go'goynayna inta aan muuqaal noocan oo kala aynu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo